بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. walaalaha Soomaaliyeed meel joogtaan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala idinku amaayelo cidii dhibka Allah ka qaado cidii dan la Allah oo fiiyay tabaan Allah deeqoynta bugta Allah bogsiyo intii dhimatay Allah u naxariisto waalidiinteena Allah u naxariisto annagana Allah nooga daba naxariisto dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo badbaadiyo. Maanta waxaan ka hadlayaa laba qodob. Qodobka koowaad dhibaatadii ka socotay Iran iyo Mareykanka iyo Israa'iil dagaalkoodii oo lagu guda jiro negotiation iyo wada hadal iyo Trump oo soo qoraya hanjabaado iyo dhaaro hor leh kelmadaha ka oranaya. Qodobka labaad, Soomaaliya xaaladii ugu dambeeyay safarkii Turki cambaareyntii ay cambaareeyeen wadamada muslimka iyo kuwa Arab League dhaqdhaqaaqii ay samaysay Israa'iil oo ahayd safiirka cusub iyo waxyaabo la xiriirana kelmadaha ka oranaya. waa markii koowaad ninkii Trump ahaa oo aad moodeen inuu isku dhex yaacay ayaa wuxuu qiranayaa si public ah inuu geli doono dambi ka dhan ah aadanaha ama dambi dagaal, isagoo sheegay inuu burburin doono isagoo beegsanaya buundooyinka iyo power plantska meelaha korontada iyo biyaha iyo transportationku ay maraan ayuu beegsan doonaa sida uu sheegay. arrintaasi waa arrin dambi dagaal ah, waa arrin ka dhan ah ama ka soo horjeeda xeerarka caalamiga ah iyo heshiisyada ummadaha midoobay ay ku heshiiyeen in aan kas loo beegsan karin buundo iyo power plant meel korontada laga daaro iyo meesha biyaha dadku u soo marto nolosha asaasiga ummaddu meesha ay ku tiirsan tahay. beegsigeedu wuxuu la mid yahay beegsiga bini'aadanimada iyo bini'aadan civilian ah oo la beegsaday buu la mid yahay. arrintaas isagaa caddaystay. wuxuu kaloo sheegay in ay ku wareejinayso Iran uraniumkii enrichedka ahaa, arrintaas oo ay si adag u beenisay Iran ayna dhaheen waxba kama jiraan, mana ku wareejinayno, mana siino, waa sacred bay dhaheen, waa arrin lama taabtaan ah oo muqadas ah nuclearku, mana siinayno cid, mana ku wareejinayno, hadduu dagaal hayana soo socdo. waxaa kaloo la yaab leh iyagoo ogolaaday inay furaan marinka Hormuz si volunteer ah, aan cidina ku qasbin. inta ka dhiman heshiiska, inta ka dhiman xabad joojinta ayuu wuxuu qoray oo soo sheegay caddeeyeyna inaysan iyagu qaadayn isbaara ay u dhigteen maraakiibta ku socota ama ka socota dalka Iran ee ay iyadu leedahay. arrintaasi waxaa ka dhashay iyaguna inay xireen Hormuz oo ay diideen inay cidiba marto. marka waa qof maskaxiyana aan deganayn, waxba aan garanayn, waxna aan xeerinayn, caddaynaya inuu geli doono dambiye dagaal, inuu bini'aadamka xasuuq. mar wuxuu leeyahay the entire country baan burburinaya, sida ay sheegtay Washington Post, the entire country, waddanka oo dhan baan qarxinaya oo burburinaya, kadibna anaa oilkooda qaadanaya. muxuu yahay ma tuugbaa xoog leh oo buli ah, mise waa nin madaxweynaha oo waddan horu maray oo xeerarka caalamiga ilaaliya, sida ay sheegeen ilaaliya, ama ka tirsan jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa, hogaamiye miya, mise waa nin mooryaana oo xoog leh oo markaa dadu ka awood badan yahay u dhaaranaya. iyaguna waxay leeyihiin waxaa aragti samee, juqraafiga iyagu waa noo hiilinayaa, sukaa dhiibi mayno. sharaf iyo karaamay u tahay caalamka oo dhammina iyagu la jira oo taageersan yahay. America waa isolated, waxay la go'doonsan tahay Israa'iil. kelmadda intaasaan ka oranaya. waxaa soo haray Soomaaliya. madaxweynuhu wuxuu ka qayb galay Turki shir lagu qabanayo wadamo badan oo yimaada xilligaas Anatolia ama Antalya lagu qabto. wadamadaas tirada badan oo ka qayb galay buu ka mid yahay, laakiin ujeedda u tegay waxaa ku soo beegmay Israa'iil oo soo magacowday safiir Somaliland. Israa'iil waa xadgudub waxay samaynayso, mana taqaan wax kale, waxaan dambi ahayn ma taqaan, waxaan xadgudub ahayn ma samayso. dad ay layso, dhul ay dhacdo, faragelin, edab daro, shaqo kale ma leh. waa dal nijaas ah oo ka shaqeeya nijaaso oo keliya, weligood wax fiican kama shaqeyn. waa evil state. waxay waa dhaweyd soo saareen xeer ay dhaheen
قبنا وكليه فلسطينيين تا لا إيديو وأهدل إلا الدلو ولا دلدلو قفكا فلسطينية دم بيجاس وكلا هدي وقال قفان فلسطيني هاي لقوا قادم هاي إيداس وهاي كنتو سيساعرين تاس إني تهاي discrimination إيو دات أن أبسلين إني modern state أي هجاميان نمانكا إيجا قبل يرجع حركة أهيسية وعالم كنوع ما ذي سنة ورنتنياهو عيد عم هنتا ما شفته هاي ذيك خلطن حتى عربتي ولي قول لسعودي وإمارات كم تاي بل عرك يجوا أهيسية عمانية سكوح شو ذا نيويهو شرفت الله ذيك قاضو شرفتي بعد ما يقعدين وأنا عبيسين وحبيس كفرين وقشنا أي ذيك بوحة وحن نوع عاسة جلال مريء أفكار خبطة وركضنا يان العرق والله مقال وحكلو تلتا وحا عمباريي دقدقاقاس أي إسرائيل سميسي عرب ليك ودمدا جامعة أوركا جامعة عربتا ودن كوميديسان إيوه أوركا ليراد OIC Organizations of Islamic Cooperation ودمدا مسلمين تا أوركا أي كوميدو بين وحا كم مقان صدح ودن سيدا دادك اللو بهدلو اللو بابي إسرائيل تقان حكم عن الإمارات يا بحرين يا مروكو وصدح ذا وطن وأقبلي أبراهام أكون وش اللي يجري ديمها إبراهيم كان اللي يسكدره وهذا الدين تودي إبسدي أو كبحي سومالي لان وحلقوا وضع إنه وحا كمد نقضان قشنك أو بنانك تاجن عرب الصومالي دينا أشياءه عدوغا ومدى الصومالي وقوين وإمارات مدى لدين شيء معها تركي وحنركي هذا بدن وتركي أفر بحسنية waxaan idin xaqiijinayaa turkigu inuusan xasan ku taageerayn doorashadaas 15 May marka la gaaro haddii doorasho dhici weydo inaysan xasan u hiilinayn oo la safanayn faragelin qaawana aysan ku samaynayn arrimaha politics-ka ah oo dalka Soomaaliya ay gaarka u leedahay faragelintaas turkiga laguma yaqaan wadan camiiqa oo taariikh leh oo nidaamka iyo systemka yaqaan isku halayn waa jirtay xasan dhankiisa ah لكن وحبا كما جيران حقيقة وجهها سيا runta arki doona si marka inta aragtiya ruuxu ugu shaqeynaya imaaraad oo isagu u taageeraya hadii uu dalka galiyo uncertainty wax la yiraahdo ama magaranaysa hubanti la'aan waxa la aqoon maxaa dhacaya 15 May lama yaqaan hadii noqoto cidda mas'uulka ka ah waa madaxweynaha oo laga rabo inay meel saarto arrintii doorashada oo wuxuu heshiis lagu yahay marka ay socdaan oo processka ku jiraan wuxuu ka hadlayaa wasiiradii isagoo leh 3 week baad haysataan ina aqbashaan ina xildhibaan kaliya noqotaan ina xildhibaanimada ka tanaasushaan oo wasiirada ku hartaan isagoo raba inuu ku dabaqo dastuurkii macmalka ah isagoo uu samaystay oo isagoo gaarka u lahaa wali waxa moodaa reality-ga iyo runta inuu iska indhatirayo laakiin xaqiiqadu waxay tahay turkigu inuusan arinta ku taageerin waxa xaqiiqadu tahay inuusan siyaasadda gudaha ku milmayn waxa xaqiiqadu tahay dalka kaliya nagu haray haddaanu Soomaalinahay budget support na siiya oo dawladeena taageero la garab taagan si joogta ciidankeena u tababara doonaya inuu batroolka dhulka ku jira inoo soo saaro doonaya inuu noqdo dhulkeenu ama meesha laga tuuro satellite Soomaaliya ay keensadeen diyaaradahoodii adogtiin 3 F-16 sideed helicopter inay joogaan muqdisho dawladda Soomaaliya u shaqeeya lagu ilaalinayo hawadeena iyo dalkeena iyo qarnimadeena Israa'iil oo duulaana aragtida kaliya ay leedahay oo aragto waa Turki waad arkayseen iyagoo u dhaaranaya Turki iyo Hakan Fidan wasiirka arrimaha dibadda Turkiga oo jawaab ka bixinayo Israa'iil waa evil state waa wadan khariban oo xun sun weeye meelo badan baa laga yiri caalamka nabad ka dhalan mayso إسرائيل أو أن أمد لغا قبان نبدي جيري ميسو without إسرائيل أو أن قعنت لغوليين أو أن لغا قبان أمد أو أن لغسو علين حدودها شرعية أو أن مركا أودي ذا لطوسين إسلا مركا اسمع أن لو بدوبين والميل لغسو وذا جنسن وحاك عام باكرا عالمك لدكو ماشي أي دد صوماليه هور أرديان أو أي هوس أرديان إسرائيل عالمك أو دنبه طفاي أو نعي الدون كوربا لغا نعي marka waa ku baaqaya qoliyahan Somaliland ciyaaladaas heesaya oo cawaanka ah oo aan la aqoon wax soo dirsaday xogaa lacaga inta loo shubay leeyahay soo heesa
شرفتي يا أمد الصوماليات معناها إلى هيدا ودن يا دينتي إسلام كأنت وكواحد قد بيان وعيبينيها ومضي عيبينيها وحاس إن النجود شلان ما بقى نلقين ودت صعوبة بأسن ونوع عاسي أي نجمدين مركب عن كتر لنا يا قوة سومالان إن أدون كودن بعيدين فرن حايدين دريمتكي وحما وشيطان عاد مقرانيسا يسوي حرتين يا إبليس نتنياهو مجرم ومدى مسلمين تأديقوا دي قعميسة كيالو وولينا الله ينيا حتى أنا ماشي وقصة سعودين وحنا كدقيو سيدا لغو قري أي شيكتي سعودي وكالة الأنباء السعودية أي شيكتي وقصة سعودة لبقى ريموت إنو ماشي كدك تميلو كجدولو ودمدا مسلمين تا إنو كعرقلة دي أمني يودا ينبدو دا يقضب كلمات ميل وكدكتو مقرانيسا ميل وكسو ترحيلو dadka Falastiiniinta oo guriyooda raba inuu xoog ku qaato Lubnaan buu qayb hadda qabsaday kor buu u socdaa maxaa maskaxda idinka qaaday ninka dadka dariska la ahi ka dhamaan la oo maalin walba qayb qabsanaya baad adigu u yeeranaysaa iskama celin kartid hadhow af labadiisa yeeris adoo qaxayaad imaanaysaa Soomaalida inteeda kale u soo cararaysaa Soomaalina iskama celin karto maxaa ugu yeeraysaa marka shaytaan ugu yeeranaysaa aadan iska celin karin madaxweynaha waxaan u sheegayaa dalkan oo saa loo qaybsanayo oo saa loogu soo wada dhababacaynayo oo saa loogu wada socdo mustaqbal fiican buu leeyahay ha ku ciyaarin iimaan la'aantu yay ku geyn in dalkaasi gacantaada ku burburo wixii lagu heshiiyey ummaddaas social contractigii ay wada dhigatay ha lagaa helo ha lagugu yimaado doorasho qabo ummadda qaado heshiis siyaasadeed xabaddu yay miirkaaga soo celin negotiation aad adigu dictate garaynaysid ama aad adigu power leedahay awood leedahay ma jirto maantaad haysataa 3 usbuuc oo ku dhiman heshiis qaado gorgortan gal waxaad isleedahay danbaa ka helaysaa raadso laakiin jooji indhaadaygan iyo xanjadaan ay dhahmarsanaysid 10 jeer baad sheegtay May 15 2026 inay ku egtahay mandate-kaagu haddaba waa intaa mandate-kaagu waxaan uu aadan ansax meelaha la wareegayo adiguna aad rabtid inaad kaga gadatid baa inaad baydhabo ugu dhiibtid oo isagu madax ka noqdo reer koonfur galbeed waa ku nacladayaan inta taariikhdaada ka hartay inta kaasi dul fadhiyo mujrimka ah oo musiibada ah oo dadka guryahoodii ku haysta baydhabana guri reer leeyihiin buu degan yahay muqdishona guri reer leeyihiin buu degan yahay qofkaasaad leedahay madaxweynaha looga dhigo ummadaad dhib baad u geysatay waxbaad yeeshay waad dhaawacday inta taariikhdooda ka hartayna nacladaasay ku haynayaan adiguna waxaad ku gadatay wax dhalanteeda oo aan waxba ka jirin oo ah inuu meesha kugu haynayo sanad dheeraada dadkaas oo dhan bay idinkala dhaxaysaa waxaana ku haray 22 cisho miirka ku soo noqdo inahaasaan oranayaa billahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullaahi